sida wada ogtiin qisada halkan ayay ka bilaabanaysaa marxaladda markaa imaaday igu dhacday ee meesha aan wax ka bilaabay iyo sidii qorshihii ii naqdeen iyo meeshaan sidaan uga baxsaday xaaladaha guryaha maxaa la dhahay waxyaabo badan oo adiga naftirkaaga oo markaad koyto ay tahay la kulmaysid iyo markii ugu horeysay oon la yaabay mucjisada ugu weynaad aan ku arkay magaalada Malaysia. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان خيارتا ميل والباتون كاتك جوكتان وايدن سلامي وامركال ولاشين فاضا معالي اسكسو نقد وعن او وناكسن ما انتا ايو channelka محوني ولا sheekadeenii qisadeeni insha Allah ta channelka markii kugu horeyso booqata tahay subscribe inoo saar hada hore nolol joogta like tii commentiga naga soo dhis dhiirigelin ayay noo tahay maanta meeshaan aan idinku soo sameeyay sheekadeena aan rabo inaan ka sii wadano waxay tahay maasha Allah meeshaan meeshii ugu horeysay waay aan lugta aan soo dhigo markaan Malaysia aan soo galay labada maalin ugu horeysay isbitaalka iyo markii dambe qisadeena sida wada ogeedeen waxay noo joogtay isbitaalka ayay noo joogtay markaad soo bixaysid guri ayaa soo bukumanaysaa amba hotel la iska dheh hotelka ma seexanaysid laakiin gurigaaga ayaa si toos u imaanaysaa dhakhtarka sidaas oo la xiriirnay gurigu noo sii ijaarnay hal qol iyo musqushiisii isku dhaxtaal aniga iyo walaashayga iyo gabadheedii markaas waa iska yareene marka alxamdulillah rabbil caalamiin markaan sidaas u soo galnay waa ogtihiin qisada meesha ay mareysay dhakhtarka ayaan ku bilaabanay بعدين magaalada ayaa lagu soo tutusayaa maalintaas horta waa lagu wadwadayaa waa hal bilo fiiso oo kaal iska arag oo special ah wadataa magaalada meesha rabtaa ka mari kartaa markaas magaalada ayaa meeshaan rabna ka marnay markaasaas oo caga dhigatid oo magaalada soo indheysid oo xaaladaha qiimeysid oo lacagaha kala fahantid oo qorshooyinka badanaa kala fahantid horta markaad qurbo aad imaanaysid horta xanuun ayay leedahay first ugu hore xanuun ayay leedahay markii dambe aad fahantid aad waxaad leedahay ayaa markii kow aan imaanay aqliga ma lahayn aad leedahay ma fahantay dadka dhan waa ila wada qabaan marka waa la isla wada arkay laakiin haddaan ku dhahay mar ayaa la degay mar labaad leema dagay ay taagantaa marka bisha 20 bari ayaan guri qabsanay oo qol master iyo musqushiis isku dhaxtaalo kabar walaasheen commentiga waxay ku soo qortay guriyaha iga soo hadal insha Allah taala bidna wax aan jeclahay inaan indhaha idin kugu furo waxay tahay sida aniga aan leegu dhacay oo leega naxsaday inaan idinkan laga naxsano subhanallah waxa iga naxsanay amba waxa aan qabsanayn waa idinka soo sheekay doona waa qisadii ugu xanuunka badneed markii ugu horeysay jugti ugu horeysay ugu dhacday Malaysia ay ahayd bisinka qisadaasna wallahi inta Soomaali badana oo joogtay inay ku dhacday in kala ma oge laakiin mar walbo adiga indhaha aad ka xirantahay waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo adiga oo aad rabtid inay waxa aad sameeysid amba wixii aqligaaga oo full u yahay ayaa waxa arkaysaa isla markii adiga oo indhahaaga oo shanta oo maskaxdaadana tamaam ay tahay caraa lagaaga shuwaano marka wallahi qof walba qurbo joogo horta qurbo markii waa lagu jalaafeena laakiin markaad lugahaaga fidsatid oo fahantid waxa leedahay yaa reed hadii oo bini'aadan kala hata uma quurisid waxyaabaha adiga soo martay marka qof koyto oo soo galo oo aad ku maqashid waxyaabahaas in lagu sameeyay waxa is leedahay wallahi ina ka hortagtid waana ka hortagaysaa sababtoo ah damir ayaan leenahay Soomaali ayaan nahay waxyaabahaas markay igu dhacaayeen ma igu sameyn qof ajnabi ah amba qof oo maxaa la dhahay aan aqoon u lahayn amba qof oo maanta oo gibilkeyga aan ahayn ma igu sameynin maanta dad Soomaali aan ku soo degtay alxamdulillah my family si fiican ay soo dhaweyn gurigaas ayaan ka qaatay maasha Allah tabarakallah waa nooleen waa cabeen waa cuneynay waan ku faraxsaneen alxamdulillah laakiin jalaafada banaanka iga soo gaartay ayaa wax walba aan ugu soo xanuunsaday aan ku kabsa waay banaanka jalaafa ka soo gaaraysa marka saas u soo caga dhigatid waxa isku dayaysaa inaad guriyo raadsatid inaad apartment qabsatid inaad depositkii wadatid aad adiga isku xireysid oo guri oo maanta aad ku nafistid oo kaliga ku go'an oo maanta aad wax walba aad ku qabsan kartid oo xor ah u tahay maasha Allah aad waxaan niyeysanaysaa inaad qabsatid markaas
marka ugu horeeyba indhaha aad meeshaas indhahaaga aad aadisid boorta wallaahi bilaahi jallaafooyin aad iyo aad u weyn ayaa dadka kasoo horbaxayo midda ani igu dhacdana horta koo dad badan horta waa maqlay inay qaarkood ay ku dhaceen dadna ay ka barmooseen sababtoo ay tahay meeshaan waxaa qaynuun u yaalo guryaha marka aad qaadanaysid ama guryaha marka aad fiirsanaysid oo ilaashanaysid amba inaad nin ajnabi ah ka qaadatid amba qof Soomaali ah oo baxaya inaad ka qaadatid qisadan ma ahan qiso oo khiyaali ah amba qiso oo banaanka aan ka keeno ma ahan waa qisadeeda ugu horeysay oo jabki ugu horeeyay oo igu dhaca wadan shisheeye aan tago oo igu dhaco oo haddana dad shisheeye aan igu dhigan oo igu dhigan dadkayga marka alxamdulillaah rabbil caalamiin marka asaas soo caga dhigatid waa ogtahay 2 maalin dhan diyaarad ayaa soo saarnaanaysaa inta aan isbitaalka daba naqnaqanaysin already almost 20 bari wax ma qaadanayso wadanka Malaysia waxa caado u taala bad saacada adigoo indhahaaga isku haayo aad indhaha markaad kala furto waxa arkaysaa adoo oo habeen leyl taagan ما أقان عملة مياه أنا ما جدول كنا قصناي والله بالله إلا هذا سيدين واحد اسبدل ملهان واحد جدول اسبدلنا ما أركن لكيس وحانو مالينا يابا ساعة وحاو مالي ساب إن لغو هاي بحال وحرك ولا ضوء أيضا تايم كماشو كوسو قال إماشو كاغا بحم أوغانيسد dad badan waxa arkaysaa dhahayaan hadda ayaan ku imaanaa isugu isla markii time-ka ku dhamaanayo xaasidnimo kama ahan laakiin waqtigiiya wuxuu yahay inta uu naqnaqanaysid inuu soo afjaro marka sheekadayn aanisi waday qisada ugu xanuunka badan oo ugu dhibaatada badan waxay tahay marka adiga aad rabtid inaad qof Soomaali ah oo guri ah ka qaadatid agency marka ka qaadanaysid guri nadiif ah oo empty ah oo eber ah waa ka qaadanaysaa waana markaad isagoo empty ah ka qaadanayso guri rinjiyeysan marwaxadiis u diyaarsan mukeefidiis u diyaarsan oo narada qaarkiis mukeefi ay u sameystaan oo narada qaarkiis waxay u sameystaan hal xabba fridge iyo hal xabba washing machine ah ayay dhigtaan marka abke Soomaaliyaad u imaanaysaa markaan wallahi bilaa dadkayga ma caynaayo laakiin waa xanuun qof walaalkaaga oo maanta oo adiga aad wax ugu baahatay oo adigana wixii aad daruuri ah u tahay inaad meeshaan aad uga dhaqaajisid oo qof walaalkaaga aad ku sintid si nadiif oo qurux badan oo kaala iskaariga oo qofkana uu ku qancaayo inaad wixii aad ku sameeysid ayaa muhiim ah ma ahan qofka oo indhahu ka xiran yahay amal wuxuu kala ogyahay malax aman labada lugood iskugu dhufo inaad dhahdid taas waa mid oo wadankeena nooga soo carar siisay oo halkaan keentay oo maadaama aan magaalada dhan ku nahay qaxooti dad oo maxaa la dhahayay oo magacooda iyo sumcadooda iyo sharaftooda dhan dhulka gashay wallahi aad ayaan ugu xanuunsaday wallahi qisadan niguma soo qaadanan qayaali waxa idinku soo qaatay in aad maanta markaad channelkeyga inta la socoto iyo inta si share gareynayso inta mar walba soo bood gareynayso indhihiino furan inaad magaaladan haddaad soo damacdaan 100% Soomaaliya reer Muqdisho reer Sacuudi reer waxa inta dhan waxay iskugu imaadaan badana ay nafka soo raadiyaan wadankan Malaysia markaad imaanaysid carqalad badan ka soo hortaagan hadii la dhaho helaboorka hadii la dhaho muqalasooyinka oo Soomaalida oo waxyaabaha soo dhameeyo oo maxaa la dhahay fiisooyinka oo kale jaamacadooyinka oo kale waxyaabaha sharciga oo muhiimka ah aad ku soo galaysid inkastoo marmar ay adkeeyaan marmarna ay fududeeyaan haddana saasay tahay alxamdulillah waa ku noolnahay waana ku caafimaad qabnaa waxbarashana waa ku haysanaa nabadna waa ku haysanaa nololna waa ku haysanaa ilaahay baa mahad iska leh geedka aad harsatid bagalad ayuu kugu leeyahay maanta wax aan ka sheegay maanta ma lahan laakiin waxa fiican wax walba aad sameysanaysid adigoo maskaxdaada tamaam ah aqligaaga tamaam ah oodna ka fiirsatay oodna indhahaaga ku furan yihiin adigoo u jeedad in lagu dardaray ama marka qaarkiis waxaad arkaysaa maskaxdaada dhan oo dhinac kale u jihaysmo aad maskax kasta lahaa min lagu dardar hadii la rabo oo dhulka lagu la galo oo ilaahayna uu ku qadaro waa kuugu dhacaysaa taas anigana tii ayaa igu dhacday u maleynaa qisada inaan inta ku jooji doono ilaa iyo dhammaad halkaan aan kasoo gaaro sida aan intaan adiga waxaa u maleynaa 9 years old inaan Malaysia aan ku noolahay 9 ayay igu sii socotaa marka qisooyinka ugu xanuunka badan tan ayay igu ahayd
guri inta commentiga igu soo qortay iyo inta luuqa iga soo hadashay waxaan leeyahay qisadan si raaxo leh oo kaala iska araga u dhageysta waadna la socon doontaan meesha ay ku dambeyn doonto iyo meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ku dambeyn doonto haddii ilaahay yiraahdo wallaahi wax iiga murugo badnaay ma lehen markaas maadaama aan ahay hooyo Soomaaliyeed oo gabar yar oo 2 jir amba 1 sano jir ah haysato oo luuqadii Englishka ahay oo aqoonin oo haddana nolosha oo wadan qurba ah imaaday sida loogu bixi lahaa aad iyo aad ay u adag tahay haddana maanta haddaad hataa aqoon kasta aad leedahay marka ugu horeyso horta koo daaqadaha albaabada in la isku ka dhufto waa waajib waay meeshan waajibkaas ayaa ka yaalo midda kale oo aad iyo aad ugu xanuunsan waxay tahay dadkeena Soomaalida ah oo reer Muqdisho haday noqdaan badanaa reer Sacuudi iyagana sidaas oo kale way nugula nool yihiin marka insha Allah qisadan inta kuma si adkaa doonto channelka ma rabi inuu maxaa la dhahay videogan igu sii dheeraado oo idinkan igu caajistaan marka channelkan si fiican haloo sii socodsiiyo like commentiga la badiyo subscribe-ka ayaan taan u socdaa aad iyo aad ay mahadsantihiin kuwa hore ila joogeen iyo kuwa hadda igu soo biiray kuwa support gareenaya markasto kuwa mar walba dhahayaan channelka mar walba inaad wax soo dhigtid waaye sidee dadka kaaga kala cararin waad ku mahadsantihiin dhamaantiinaba aniga ma rabi waxa meeshan u fadhiyo waxay tahay shalay wixii igu dhacay ushii igu dhacday inay idinku dhicin sidaas la ajligeeda ayaan waxa idinku talagalay qisadeeda inaan idinkaga sheekeeyo mid igu xanuunka badneed tan waaye taariikhdaas markaad aragtiin hataa waxaad ilmaamaysiin inaad wadan qurba aad tagtiin sababtoo ay tahay jalaafo wax ka xun malahan oo haddana dadkaaga ku dhigay marka sidaa u jeedin videogan oo soo gabagaboway waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi